daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya koox hubeysan oo dil qorsheysan ka fuliyay Muqdisho madasha badbaado qaran oo qoraal xasaasi ah u diray beesha caalamka kuna dhawaaqday mowqif adag madaxweyne lafta gareen oo si weyn loogu soo dhaweeyay Muqdisho kulmadii siyaasadeed ee ka socday Muqdisho oo la isku raacay saddex qodob cali guud laabay oo kulan la qaatay wakiilka xogahayaha guud ee qaramada midoobay hadalkii caanka ahaa ee Cabdi Qaboojiye oo xaaladda halis ah ku jira iyo sidoo kale wararka nagu soo kordha ayaan idin soo gudbin doonaa haddii aynu ku bilowno faahfaahin kala duwan ayaa waxaa laga helayaa fal toogasho ah oo ka dhacay qaybo ka mid ah gudaha magaalada Muqdisho ila dadka deegaanka ah ayaa warbaahinta u sheegay in askari ka tirsan ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa qaada canshuurta ee loo yaqaano Manashiibiya lagu dilay qaybo ka mid ah degmada Dharkiinle ee gobolka Banaadir wararka ayaa sheegaya in ragga dilka geystay ay ku hubeysnaayeen bistoolado dilkana uu ka dhacay suuq Boocle sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in raggii ka dambeeyay dhacdadaasi ay goobta isaga baxsadeen kadib toogashada ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale gaaray goobta kuwaasi oo daqiiqado kadib meydka ka soo qaaday halkaasi kadibna sameeyay baaritaan kooban ma jiro ilaa hadda wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca saraakiisha laamaha ammaanka ee dowladda oo ku aadan dhacdadaasi si kastaba dilkan ayaa qayb ka noqonaya falal amni darro oo maalmihii dambe ka dhacay Muqdisho kuwaasi oo isugu jira dilal iyo qaraxyo geystay khasaare kala duwan dhanka kalena madasha badbaado qaran ee Khamiistii Muqdisho loogu dhawaaqay ayaa qoraal ay u direen dalal iyo hay'ado caalami ah ku dalbaday in si degdeg ah ay u soo farageliyaan ismarwaaga ka taagan doorashooyinka dalka qoraalka ayaa loo diray xogahayaha arrimaha dibadda Mareykanka wakiilka sare ee midowga Yurub ee siyaasadda arrimaha dibadda xogahayaha arrimaha dibadda Britain wasiirka arrimaha dibadda Turkiga gudoomiyaha midowga Afrika xogahayaha ururka iskaashiga dalalka Islaamka iyo xogahayaha guud ee jaamacadda Carabta Ahmed Abuljad madasha ayaa sheegtay in Soomaaliya ay wajahayso xaalad halis ah sababtoo ah madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku guuldareystay inuu dalka doorasho gaarsiiyo taasi oo ahayd mas'uuliyad madaxweynaha saaran waxaa kaloo ay ku eedeeyeen inuu waxyeeleeyay dadaal iyo daacadnimo kasta oo ay muujiyeen saamilada siyaasadda iyaga oo tusaale u soo qaatay in uu ka soo kacay miiska wadaxaajoodka ee shirkii Dhuusamareeb 4 madasha ayaa qoraalkeeda sidoo kale ku sheegtay in Farmaajo uu shir ku baaqay xilli beesha caalamka ay wado dadaal la isugu keenayo dhinacyada Soomaaliya si ay isugu yimaadaan ayna ka wada hadlaan xaaladda doorashooyinka waxay kaloo ku eedeeyeen Farmaajo inuu weli sii wado inuu xasilooni daro ka abuuro dalka isagoo ciidamo ku daabulayo gado taas oo ka hor imaanaysa sida ay sheegeen qodobadii ay soo wada jeediyeen guddigii farsamo ee ku shiray Beedhawa madasha ayaa sidoo kale sheegtay in Farmaajo weli uu sii wado in uu ciidamada qaranka u adeegsado dano qaas ah ama dano shakhsi ah intii ay kala dagaalami lahaayeen Al-Shabaab qoraalka ayaa intaasi ku daray in Farmaajo uu amray in ciidamada Haram Cad ay la wareegaan ammaanka garoonka Aadan Cadde taas oo ay ku micneeyeen isku day lagu fashilinayo dadaalka beesha caalamka ee shirka halkaa ka dhacaya madasha ayaa sheegtay in dhammaan qodobadaasi oo ay wehlinayaan ficladii dhacay 19 Febraayo ee lagu weeraray dibadbaxayaasha ay cadeynayaan in Farmaajo uu ku xadgudbayo awoodiisa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho kadib safar uu maalmahan ku joogay wadanka Turkiga lafta gareen iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde si weyn ugu soo dhaweeyay xubno ka tirsan golayaasha dowladda qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka ku dhaqan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa ka qayb galaya shirka wada tashiga ee u dhaxeeya dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir kaas oo uu iclaamiyay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale madaxweyne lafta gareen ayaa qayb ka noqon doono dadaalada iyo kulamada siyaasadeed ee ka socda gudaha Soomaaliya looguna arinsanayo xaaladda dalka si kastaba shirka bari ka furmaya teendada Vizioni ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa xaaladda cakaran ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ayaa haatan wajahaysa xaalad adag oo kala guurka ku saabsan waxaana weli ismariwaa uu ka taagan yahay hanaanka loo wajahayo doorashooyinka 2021 dhanka kalena madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guud Laawi Xuseen oo howlo shaqo u jooga magaalada Muqdisho ayaa maanta hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ku qaabilay xogahayaha guud ee qaramada midoobay Ambassador James Iswan kulankan ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka gaar ahaan muhiimadda ay leedahay in isfaham buuxa laga gaaro qabsoomida doorashooyinka lagu wada qanacsan yahay sidoo kale kulankan ayaa waxaa looga hadlay xaaladaha guud ee Hirshabelle gaar ahaan
fatahaadaha maadaama la gudagalayo xilli roobaad. Cali Guudlaawe ayaa wakiilka xogayaha guud u sheegay inay diyaar u yihiin xal walba oo laga gaari karo doorashooyin wada ogol ah lagu qanacsan yahay Hirshabeellena ay ka qayb qaadanayso. ugu dambeyn haddaan eegno hadalkii caanka ahaa ee Cabdiqaboojiye oo uu haleelay fayraska corona ayaa sheegay in loo xiray timihii oo dhaqaatiirta la tacaalaya ay u sheegeen in uu u diyaar garoobo dhimasho ayna tahay saacaddii ugu dambeysay ee noloshiisa. Muuqaal kooban oo iska soo duubay asagoo neefta ku dhagan tahay oo ashahaadanaya ayuu dadka Soomaaliyeed ka dalbaday inay u soo duceeyaan. COVID-19 ayaa dadka Soomaaliyeed ku haya dhibaato aad u daran asagoo horey u dilay dad badan oo bulshada Soomaaliyeed agtooda ku weynaa. Haddaba waxaa socda dadaaladii ugu dambeeyay ee xaaladda gobolka lagula tacaalayo. Wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya waa inaga intaa.